kusoo dhow Professor Togane Somali Channel marka hore dawladda waxa la yiraahdaa kumeel gaarka way ka baxday arinta maxay kula tahay dawladdu ma u egtahay mid kumeel gaarka ka baxday mid kumeel gaarka ka baxday mid meel gaaraysan oo ma eko magac waxa la yiri magaca muslimiin maalin bay baxaan ninaas buu leeyahay xasan inaas badan Soomaalida oo ka bixiyeen ninkan ma gurgurto iska daa inay dawladdan qato ee socdo gadaal bu xasan gadaal buu noo celiyay 91 buu nagu celiyay wuxuu soo abuuray naceeb iyo wixii dagaalka sukeeyay ka dambeeyay wuxuu noo kala qaybiyay daarood iyo hawiye waxa la rabay xasan inuu ku gambado taas oo isku dhiibay dadka reer Puntland ayaga dawlad fahmay dawlad samaystay Soomaali guri bay leedahay meel ay istaagto waxa la yiraahdo magaceeda Puntland waxaan u jeedaa in meelo badan taabatay waa runta waxaan rabnaa dulucda inaan soo degno haye muhiimadda hadda taagan waxa weeye de habar gidir iyo wixii ay xadeen ama wixii ay dhaceen meesha tala Soomaali iyo mustaqbal Soomaali aan ka filanayo waa meeshaas kaliya aan ku tilmaamay oo la yiraahdo Puntland wiil daarooda Puntland buu aadaya bal hawiyo walkay aada caasimada ma aha quraan ma aha meel ku qoran aniga hadda itira caasimada Soomaali waa halkay waxaan ku leeyahay garow hawiye wuxuu moodaa dawladnimo wuxuu Soomaali danteed moodaaba ya bililaqsi waa tahay Professor Soomaalidu waxa tiri waa in istaqaana waa run haddii ninkan uu nin ragayay oo madaxweyne Soomaaliya maxaa laga rabay sidaan sheegay inuu aado Puntland daarood asaga raacdeeyay Puntland asaga ka dhiga cadow asaga isku dayay 91kii la galiyay oo xasuuqo abgalka ay xasuuqeen magac kale loo bixiyay maxay nuux ismaaciil iyo Maxamuud ya nuux maxamuud cumar maxamuud iyo nuux ismaaciil waxay nuux maxamuud baa loo bixiyay porfiri wali waxa ku guda jirnaa barnaamijkeennii taageerada ahaa madaxweynaha Puntland waxa aawana la jooga oo isna safar dheer soo galay oo hotelkan ku sugnaa oo u yimi taageerada madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole nin aad u taqaaniin waxa rabaa markuu soo galayo in sacab iyo istaag iyo guux iyo sawaxan meeshu la yiraahdo hotelkii maxaa galay waa Professor Maxamuud Siyaad Togane fadlan ila soo dhaweeya Professorka Maxamuud Siyaad Togane oo isna aan rabo bal caawa inuu idin la wadaago sheekada halkan ka dhacaysa fadlan Togane si fiican soo dhaweeya Professor Togane soo dhawow ilaahay bini aadam wuxuu daan bini aadamna laba furbuun si laba bushimo maxay ay dadka lagu caayay ee mid dadka lagu faaniyo maanta Soomaaliya ninka ay u baahan tahay the man ninka ay u baahan tahay waa Dr. Faroole Soomaaliya hal tir baa u taagan tirka Soomaalida ugu xog badan oo u taagan waa tirka la yiraahdo Puntland aniga intaan ni imaanin waa fakaray markii la yiri kaalay waxaan goostay inaan gabay niitriyo gabay oo Soomaali ah laakiin aniga waa iska ogtiin saan sheegay 65kii baan imid haddaan wadankayga ku noolaa lahaa 65 markaan qalin jiray Mareykan aan ka baxay ilaa hadda dan ku noolaa lahaa Afgriis kuma gabiyeen af Soomaaliya ku gabi lahaa sidii abgaalkan ka dhasho kala baan sirbi lahaa marka waa duuniga doon waxa la yiraahdaa duunka inta ku raagto wax kasta waa arkaysaa geel dhalayna waa arkaysaa abgaal Ingiriis ku shirbaayna waa arkaysaa marka walaalayaal gabaygu wuxuu leeyahay anoo wiil yara aniga waxa la yiqiinay shibane waana aamusnaa hadda laakiin waxa ugu dhacay garan maayo markaan alleela mar afka aan kala qaaday baa aabahay wuu yaabay Siyaad Togane cawada jawaab gaal wuu yaabay wuxuu yiri bal wiilkan dhageysta aabahay hal su'aal baan weydiiyay ilmaha waa yaab ma ogtahay ilmaha wax kastaba intaana maartay ilmaha eenan maartay aan lama taqaanaa si kale aan la duufsan runta bay ku hadlaan aabahay su'aal baan weydiiyay waxa yiri أبا ما أبقى البان هم سما جرتين أبي إساس بوي هيك بركاز يقولوا ما إنه محاكا ودا واحد أبو واحد كودا مركز تو بلاين قبضته أفقع قبضتها واحد ترى طول بيلا يا ما جرتينا
marka aaba maxaa u dhihi weysa tol beela yaa abgaala dadkana caawa qabow iyo barafaayo laakiin togona markuu hadlay dadka dhan waa kululaadeen bal dhinaca fiiriya caawa dhan lagama sacabtumayn hadda waa taagan yihiin sacabkii masxaradda xagga u badan tahay professor togona aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeenna baan weli ku guda jirnaa waxaan sugaynaa daqiiqadaha soo socda haddii aan la idmo madaxweynihii puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo soo hadli doona